ما أنتو حديث قاضي يا بسم الله صدق قصيبان سوكي صدر يا سنة خاموا يسوع قاضي يا sidoo kale manaagshi ayaa soo qaadaya oo adirshad waxaan ku barsimaad ahayd oo khatar ahayd labada qof si aad bay ugu soo noqnoqdeen sidoo kale Eva iyo barnaamijka xafladaas wixii ka dhacay ayaan carafka iyada ku dhufan doonaa hordhac ka dhigi doonaa labada barnaamijka kalena waa idinka dambaysin doonaa ha ka degdegina okay ha xanaaqina waxaan sir u sheeg adiga xanaaqeen muna xiiqnay baday hadaba iska daaniyo marka waan jeclahay runtii waan idinka fakiraa ma dareemi kartaan saan idinka fakiro wallahi aniga meesha views badan kuma haysto subscribe badan kuma haysto like badan waa dadaashan afartiina qof horta aad baad u dadaashan kisaasay tahay haddaan xasraa afartaa qof ee ku jecel yaa marka aan awood u heloba wax jeclay wax laba at least qof inaan qanciyo way asxaabtayda qiimo badnayd Eva Award horta Eva Award iyada laftigeedu abaalmarin aan inaba caadi ahayn oo caalami ah dadka ku guuleystaana waxba kama liitaan I mean film award ku guuleysta hadii markii hore aad Ranbir Kapoor yaaliye baad ay dhaceen Shahrukh Khan iyo Rani Mukherjee tan ay heleen best actress iyo best actor ay ku heleen isna filkiisa Jawan uu ku helayna filinkeedii Mrs Chatterjee fi Norway ay ku heshay meeshaas waa cadara aan caadi ahayn ba horta ka dhacay ciyaaraha Kirtisanon iyo Shahid Kapoor iyo Vicky Kaushal iyo qayb lixaad ay ka qaadanayeen waxaan caadi ahayn ba meesha horta laga dhigay Abu Dhabi ayayna ka dhacday xafladaas iyada ah maalintii Jimcaha ahayd asxaabteeda qiimo badnayd ay hadaba sidii lagu kala guuleystay best picture waxa ku guuleystay filimka Animal ba ku guuleystay best director waxa ku guuleystay To Alif Fail filimkan ayaa ku guuleystay macna director kana ku guuleystay Layra Fidu Vinod Chopra ayaa ku guuleystay supporting actress waxa ku guuleysatay Shabani Asmi filimkii Rocky Aurani Prem Kahani filimkaas ayaa ku guuleystay supporting actor xagga filimka Animal waxa ku guuleystay Anil Kapoor ba ku guuleystay best performance na waxa ku guuleystay Bob Deol oo bad actor ku metelay yani booska filimka ku metelay music waxa ku guuleystay egg yani wali waxa mudda in ay dhinac ka raran tahay abaalmarinada inta ugu badan filimka Animal ba ku guuleystay ilaahay ugu ogyahay egg best music ba ku guuleystay best performance ba ku guuleystay support actor ba ku guuleystay hay best picture ba ku guuleystay egg ani Ranbir ba gas loo siiyay filimku isaga number 1 wali meesha ka ah hadaba heer malina waxay ku guuleystay abaalmarinta la yiraahdo Outstanding Achievement in India Cinema waliba abaalmarinta waxa gacantiisa ku siiyay inankii ay gabigaba sabab u ahayd inuu shirkadda Bollywood-ka ama King of Bollywood uu noqdo waa Shahrukh Khan ayaa gacantiisa ugu dhiibay nasiib wanaag yani iyada soo gashatay shirkadda maantana waa taas isaga gacantiisa ugu dhiibay macna sharaf saas waliba lugaha waa lagu hoos u dhigay macna wuu sharfay aad buu qiimeeyay hadaba qof baa wuxuu soo weydiinayay adiga waxaad weydiisay walaal waa maxay sababta ka dambaysa inay ku guuleystaa abaalmarin maadaama wax film ba iyada aan meesha la iman iyada waxay ku guuleystay Women of the Year gabadha sanadka abaalmarintaas ayaa lagu sharfay maadaama qof aad u dadaashay ay tahay waxa loo xushay inay tahay gabadha sanadka meeshana ogow koonfur iyo waqooyi waa la mariyay Bollywood iyo Tollywood ba meesha waa la wada joogay waxa la soo xulay intii ugu khatarsaneed ayaa meesha la soo keenay lana filayay in abaalmarinta la siinayo intii ugu sidatay Bollywood iyo Tollywood ba la soo keenay sadarteed ba iyadana abaalmarinta dhac loogu siiyay kal barnaamijku dheeraa laakiin ka inta aan soo koobay maadaama barnaamijkeena xagga dambe part 2 iyo part 3 ba ay noo hadheen ku soo dhaweey makana part 2 insha Allah alla muxuu ahaa jacaylkii tahsoonaa ee ka dhaxeeyay fanka weyne dalka Hindiya Kumar Sanu iyo boqoradii fanka dancerka modelisatadii gabadha quruxda ku guuleysatay ama Miss India ku guuleystay 1981kii gabadhaas gabadh kale ma aha waa Meenakshi Seshadri Meenakshi horta waxay dhalatay 16 November 1963 ayay dhalatay gabadhan waxay ahayd adirshad waqtigeeda aad iyo aad rag oo dhan ay aad iyo haday director yihiin iyo haday producer yihiin iyo haday actor yihiin ba iyo haday singer yihiin ba ay aad iyo aad u jeclaysan jireen markaliya inay xiriir la sameeyso adirshadan Tamil iyo Telugu iyo Hindi intaba way soo
matashay inkastoo la sheego filmadeeda inay yar yihiin yani ilaa 20 film meelahaas laakiin run baa wanaagsan filmadeeda ayaa ahaa filmo aad iyo aad u tayo leh oo filmadeeda filmadan waxaanaba ilaawi karin filka Chatak ee Sunidol kula jirto gayaal ay Sunidol kula jirto iyo Damini ay Sunidol kula jirto inna lillahi wa inna iska daa filmada kale ee Andy Tufan iyo Mary Chan iyo Shahanshah iyo bismillah filmo badan baa jiray laakiin anigu ay Sunidol la matashay ayaa runtii daawaday bal gayaal ka waran bal Chatak ka waran bal Damini ka waran inaba caalamada kala Sunidol way isku soo bixi jireen filmada si fiican bay wada keeni jireen aan kugu dareynaa tan shirkadda Bollywood waxa iska tagtay waqtiga uu soo baxay filmka Chatak markaas ayaa shirkadda Bollywood ka ay go'aan ka gaadhay aanu sanoqona iyada iyo ninkan odayga ee Kumar Sanu anon ilaa weyn inay ku soo baxday filmkii Painter Babu oo 1983 ga ahaa يعني حلقة الصبح فيلم كسب حضي سيدا كل فيلم كي هيرو لفتيسة كان رهنا أما شوبة أما جكي شريف أتاجر شريف أبيه أي لما تشي فيلم بدن بمركز فيلم هذا بدن ولي بعان كان عندي كطوفان إيو بسم الله جيالي دامني إيو شتك إيو شهنشاه فيلم هذا بدن ولي واوين ده فيلم واوين أي متشي inantani iyo ninkan odayga Kumar Sanu horta waxay isku barteen filimkii Mahesh Baad oo iska lahaa ee Jam filimkan ay isku barteen markaas filimkaas ku kulmeen way filimka waxa ku jirta hees macaan oo caana oo tirada jab kooy baad bigad jaaye heestaasna iyada jilaysa Kumar Sanuna uu ku heesaya heesta isaga iska leh saadarteed halkaasaba ninkan odayga sonkortay sababtoo gabadha ugu noqday gabadh la eegan karay ma ahayn bal kulay waqtiga quruxdeeda inaba caadi ma ahayn inaba caadi ma ahayn kadib iyadana way aqbashay xiriirkiisaas 3 sano ayaa la yiri bay qaranayeen xiriirkooda sababta u qaranayeen muxuu sheegaa sababtu wax weyn ku xaas loo ahaa wariyaa nimankii hore oo dhan intixaan bay ahaayeen 3 sano gabadhan hoos u haystay oo adu qudba sirba iska dhib iskaga haystay 3 sano raali kaga ahayd in iskala noolaato sida Manisha Patel iyo Amisha Patel iyo maxay Manisha Koraila iyo Amisha Patel iyo Sushmita si dadkaas oo dhan niman bay iskala soo noolaayeen aan qabin xitaa reexa laftigeeda cali dheer bariyeedun iskala nool marka qudba sirka iyaga laftigooda way yaqaanaano waan ku guursan doonaa xoogaan cagta u dhigno iyo wax noocaas naagtan aan furaya waxa rag ku maaweelin jireen marka Kumar wuxuu qabay Rita Bajaria gabadh la yiraahdo ayuu qabay na kulba ahdo inaba caadi aan ahayn gabadha soo qabay marka mar dambe interview bala la yeeshay islaanta yar dabadna way ka shifta waxay tirade ninkaygu iska naaga badan yahay marun bala doonayay masabeen ma Kumar ma hawl yara bay tiri Kumar ma hawl yara Kumar boqol ka tanaagad bay ugu dul wada waan ogahay waan ka dheregsanahay haye habal noo waran kuwii wareysanay ha waliya bille naagu igu dul wada oo naagaha talo yaa kamid midna ma ka garanay oo saan uga garanay naagta manaagshan ba garanayaa naagtana igu dul wada oo imikadaas lacagtiisi meeday mushaharku soo qaataba 4 xabbo ee heesadu mushaharku ka soo qaataba iyadoo afka galiya baa anagu hoognayo basanbaasna oo mid ma haysano haye oo lacagtiisa iyadu siiya ha lacagtiisa iyo waqtigiisa iyo noloshiisa wanaagtaas haysata marka wax qarsoon ma jirto alla inna la isaguna nin caan u haaya qalbada jabtayna see gashanaagu barigaada way xishoon jireeno nimanka way ka baqi jireeno waxa isku day jireen ninku si uu uga tagine laakiin de kama filayn inay saa intay meel public soo fadhiisato Rita naagtiisi ay fasho qalbada jabtay nawaab ku furayaa buu yiri heblaay saddexdii buu yeeri waa u fudeeyay laakiin qalbigiiba dhagax ka fuulay qalbigiiba jabay maadaama gabadha uu doonaynta inuu mala furo iyo sidan public iyo fadaxadan ay u soo jiiday xiriirkan xumaaday kadibna ninka waa qalbi jabay gabadhina jacayl buu siin kar waayay halkii uu maartay oran hadii furay boo chance baan helay aan ku guursado qalbadaasi jabtay oo ninkii waa awood waayay gabadhii kale ama naqshi inuu la sii noolaado markaasuu iskaga tagay ninka kale ee producerka khatarta Raj Kumar Santoshi ila gabadh dhacaysa ma ahay ayaa bash isagana ay kaga dhacday gabadhii buu jeclaaday
الله waliba isaga maxaa kaaga dar filmada gayaal iyo isaga iskale sama ogid ninkaas isaga filmada leh marka filmka markay matalashay ayaa filmkaas aad ugu guuleystay iyadoo sanadon dabadeedna markaas uu sheegtay intuu isdhiirigeli yaa oo caloosha sii xidhay uu yiri nama naqshi nabriyahan badee wadan fahmeeyay waa kugu wareegayo sokor siwitan kugu aha ma naqshiye de maxaad iga leedahay wariga tagbay tiri wariga ani marba oday yar iyo gurgurani kuma doonayay tiri walaalo qalbada milixda ka dhigta mid yani wax aanu filayn yani qalbada xidad dadka saa loogama jabiyo qalbadii bay milixda ninkii ka dhigta allah de markaas muxuu sameeyay wax kastuu sameeyay adoo in badan ku daalay sheekada aad buu dheertay gabadhan waa gabadh weyn gabadhan taariikh badan bay leedahay laakiin ka gayoon meena taariikhda intaas ku soo koobaynaa gabadha imika hadda Mareykan bay degan tahay nin bay guursatay inan yar bay haystaa iskuul dhan bay furatay xagga dansiga ah oo macluumaad xagga dansiga ah ay noqotay waxayna tiri aniga xagga aktarnimada iyo dansarnimada yani inaan dansarada ahay baan weligay is aqoonsanaa iskuul bay markaa furatay halkaas kama qasno Mareykan bay gabadhaas degantahay asxaabteeda qiimaha badnayd halkaas ayna manaaqshi maanta ku soo koobaynaa sana khan taariikh badan ayaa inanta run ahaantii ku duugan sana waxay dhalatay taariikhda markaad 22 August 1987 ama 88 way labada taariikh wala isku hayaa ma cadda mutadriistii ka badaltay misistii ka badaltay oo labadaas sano midun bay dhalatay Valerie waa gabadh muslimada abeed xagga Malaay ka soo jeeda hooyadu waa reer Mumbai hooyadu waxa la yiraahdaa Zaida ayaa la yiraahdaa iyadoo yar ay xagga fashion ka soo tijaabisay runtii mar walba xayad mid yani aqligeeda maskaxdeeda inaan ku socota filmkeedu ugu horeeyay waxa yahihe high society filmkaas oo ahaa run ahaantii filmkaas imika sawira ka soo qaatay waan waayay film aad u anshaxun weeye saadarteed ayaa community-ga ama dadka muslimiinta oo dhanba gabadhan necbaa aad bay u necbaayeen zaaid bay u necbaayeen waayo iyadoo de muslim sheeganaysa ayaa waxay sameyn jirtay wax aan hunuuda bilaadiinta aan samayn macna waxaana ku dhicin oo ay ka yar khashaafaan ama sharaf ahaan uga dhacaan ayay iyadu sameyn jirtay oo ku dhici jirtay oo haday toonto shorts yar bay xiran jirtay oo waxaan ku filmada noocan oo kale sameyn jirtay wax alle waxay ka nixi jirtay haba yaraatay ma jirto filmada ay qaybaha yar ama muuqaalada yar kooban ay ku leedahay 2006kii filimkii Bombay to Goa ay ku jirtaa sidoo kale filimkii 2007kii dandanana dan goal filimkaasna way ku jirtaa oo 2007kii ahaa muuqaal yar bay ku leedahay laakiin gabi ahaan marka la qiyaas gabadhani ilaa 50 film ay ka soo muuqatay 10 filmna yani qayb weyn bay ka qaadatay laakiin inanta waxay caan ku noqotay oo ay ku soo shaac baxday oo lagu bartay oo ay qof ku noqotay oo taageerayaal ay ku yeelatay oo dad jecel iyo dad nacabba ay ku yeelatay waa barnaamijka Big Boss reality show barnaamijkaas oo 2006 ayay gabadhani ka qayb qaadatay halkaas horta ayaa lagu bartay halkaas ayaa inanta lagu bartay ee filmaba kuma qarxin halkaas ku barnaamijkaas ay ku qarxdo waana barnaamijka abid inta film iyo wax kasta ay matalaysay ugu qaalisana waayo film waa barnaamijkii wax ku noqotay lagu bartayba runtii jacayl badan iyo dad badan oo taageeran oo ku heshay dad badan oo nacabna way ku heshayo nin aashka la oran jiray isna barnaamijka kula jira ayaa maalmaha kamid ah xitaa lagu qabtay isagoo gacantiisa adu meel qaldan gabadhan ka saaray dabadeedna adu fadeexad waa la caayay waa la xumeeyay waa la aflagaaday gabadha inkasta markii dambe la yiri warniyo labadan qof malaha xiriir iyo jacayl ba ka dhaxeeya oo la isku xantay laakiin markii dambe ay yiraahdeen wax naga dhaxeeya ma jirto ninku meesha uu yar badbaadinayay adigu wax xumaana iyo yani farxuma uu sameeyay ma jirtin yani ma jirin laakiin isaga uu yar badbaadinayay ana meel ka sii dhacay iyada wax noocaasa yani way inkareen inay wax qaldan sameeyeen marka gabadhan mar kasta waa la xaman jiray mar ninkan lagu xanto aashka ee barnaamijka kula jiray mar lagu xanto ninkan iyada waaba jeclaatay ninkan Malfis baa la yiraahdaa waa nin dansiga dadka bara 2019kii bay si macna bareera
Instagram keeda u keentay oo tiri ninkaasaan sokorta iyo sibita isku nahay hana la ogaado aad bani kanu jeclaatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un si aan qof bini aadan loo jeclaan bi aad ugu jecel sokorta sibita ku noqotay bashba inanka ku noqotay hase ahaatee qofka waxa la yiri geedka dad biyaha ka badisid wuu dhintaa jacayl bay ka badisay kadib muxuu ku sameeyay 150 naagood buu ku dul waday waa intuu waliba ku dul waday ayuu waliba saaxiibadaheed horteeda macna ku wadan jiray macna wuu bahdilay oo qursaday aakhirtaanka ilaa ay heer gaadhay ay ku qabato aakhirtaanka ilaa heer ay gaadhay ay ogaato inay qaar uuru leeyihiinba markii dambe iyaduna way qaraxday way xanaaqday wax alla waxay haysay ay soo deysay iyaduna siro iyo message iyo in naag uur u leedahay way fadeexadaysay iyaduna markii dambe marka waxyaabo badan baa lagu nici jiray ninkana lagu nici jiray ninka hore meeshaas Big Boss kula jiray ayaa lagu xantay dharkeeda qaqawnida filmada xun ee metelaysa lagu nacay aad baa inanta loo necbaa xagga muslimiinta waliba khaasatan kadib ninkan adigu malfin markay wada hareen madaxa weyn lee ninkan oo kiyaalaha sidaad halka ka aragtaan waxa badiyay maqshir buubo waxa inantu maalintaas degtay maalintaas diinteeda ku soo noqotay maalintaas xijaabatay maalintaas go'aan waxay gaadhay 2020 bishii October ayay waxay go'aan ku gaadhay inay dhamaanba social media maaha shirkadda Bollywood-ka ay faraha ka qaadayso gabigaba shirkad dhanba Bollywood iyo Teluguba ama Tollywoodba waayo inantan filmada hindiga kaliya ma ay sameyn jirin filmo badan yani 5 luqadood oo dalka Hindiya laga hadlaba way ku soo shaqeysay marka waxay tiri dhamaanba filmada iyo shirkadba aniga dib layguma qabanay waan ka toobad keenay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay dambi dhaafo asxaabteedii ii soo duceeyay waan xijaabtay maanta kadibna waxaad igu ogtihiin anoo creator-kayga iyo muxuuha humanity-ga u shaqeeya oo dadka bini aadnimada iyo afcaal khayrka sameeya inaan ka mid noqdo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan u noqdo saas ayay sheegtay inaan taasi marka halkaas ku muslimaan waxa la oran karaa ninkan faraj buu hal qalbiga markuu milixda ka dhigay ayay nolosheedii caadiga ahayd rasmiga ahayd ee looga baahnaa in badan laga sugayay ayay ku soo noqotay mid kale aan ku darayna waxa weeye inantan beri baa waxa geeriyootay inan la magaca oo Pakistaaniyada oo aktarada iyaduna oo la oran jiray iyana Sana Khan Ilaahay xajana ka waraabiye muslimad bay dabcan ahayd waxay ku geeriyootay wadada ay ku geeriyootay yani road accident ay ku geeriyootay inantaasi kadib iyada ayaa loo maleeyay bariyo dhanba message loo diray koolal waxay ku leedahay meel kasta kool baa iga yimi message yo mid dhimatay qof la soo qaraacay la leeyahay mid dhimatay aniga gaas maalmo igu dhacday Ilaahay biigo marka inta lagu soo qaraac ma waliga ma lagu yir mid dhimatay marka iyadana sidoo lagu yiri waxay tabaraan ma dhiman inaan ila magacay ahayd alxamdulillah waa noolahay hawlahayga iyo shaqooyinkaygana iyo noloshaydaba waa ku jira halka markay mareysay inantan waxay guursatay 21kii November 2020 waaba in yar kadib markii ay ku dhawaaqday in shirkadda Bollywood-ka ay ka fadhiistay waxay guursatay nin muslina oo la yiraahdo Anas Siyaad mufti Anas Siyaad ninkan ay guursatay ma sha Allah in yar bay u dhashay inan ka yarna Siyaad ayaa loo bixiyay Siyaad Tariq marka dadku inay taxan yihiin xataa ninkan markay guursatay inantii eedayn iyo dhaleecayn balala daba galay maxay noo keenay waxa qofkan gafuurka weyn waxa qofkan shirkaanka weeg yani waa la maagay yani waxa la inantii sidii ahayd la naagtan waxaan ku yiri barigeeda way soo bandhigi jirtay miyaa qofkan ku dambaysay bullshit yani rag badan baa xanaaqay dad badan way xanaaqeen markaas ninka yiraahdeen waxana uma qalmin laakiin alxamdulillah muslimin shay ma iska kala degantay qoftaas lacagteedana waxa lagu qiyaasaa 2 crore wayna ka asxaabteedii hadaba wada socdaa ila socda kaliya